Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibeel kusoo dhawaada mowduuceena maanta haddii aad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xiran janalka hoyga bulshada. Mowduuceena maanta waxa uu la magac baxay ma ogtahay waana mowduuc taxana waana xalqadiisii koowaad. saaxiibayaal waxaan idinku bishaaraynaynaa inaanu bartan idiin soo golin doono barnaamijyo taxana ah oo toddobaadkiiba 2 barnaamij ama 2 mowduuc oo macquula idiin soo gelin doono. fadlan haddii aad channelkeena hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan janalka hoyga bulshada. waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah. Ma ogtahay in caalamkii ugu horreeyay ee dalalka islaamka ee ku guuleystay abaalmarinta loo yaqaano Nobel Prize-ka ee cilmiga fiisigiska uu ahaa Professor Maxamed Cabdisalaam oo u dhashay dalka Pakistan. Sidoo kalena ma ogtahay in wadanka Indonesia uu ka kooban yahay in ka badan 13,000 oo jasiiradood isla markaana uu yahay wadan ay ku nool yihiin muslimiin aad u badan oo dal qura ku wada nool. xurmadiisana wuxuu ka qaatay Holland 1947. ma ogtahay in gabadhii ugu horeysay ee muslim ahayd ee si dimuqraadiyadda loogu doorto jagada ra'iisul wasaarnimo ee wadan islaami ah ay ahayd Benazir Bhutto oo u dhalatay Pakistan. gabadhani waxa ay wadankeeda ra'iisul wasaare ka noqotay 2 jeer oo kala ah 1988 1999 iyo markaas oo ahayd 35 jir iyo waliba 1993 iyo 1996 waxayna labadaba jeerba xukunka ku degtay kacdoon shacab oo markaasi ku yimid. ma ogtahay in wadanka ugu dhulka yari uu yahay wadanka la yiraahdo Vatican-ka waxa uuna leeyahay baaxad dhuleed oo gaaraysa 44 hektar. ma ogtahay in boqorkii dunida ugu da'da yaraa xilligaasi 1986 uu ahaa King Mswati oo xilligaasi da'diisu ahayd 18 sano qura. kani waxa haystaa wadanka Switzerland oo ka mid ah 5 wadan ee ku yaala Koonfur Afrika. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mowduuceeni ma ogtahay xalqada labaad insha Allah dhawaan la soco fi amaanillah.